ومقصود مجدد وسمعي وشمي ضال ومغرات النادرين. waxaa maanta magaalada Hargeysa si weyn looga xusay xuska dhalashada nabigeennii suubana naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee oo sanad kastaba la xuso 12 bisha Rabiicul Awwal ee sanada Hijriyada. munaasabadani lagu weyneynayay xuska dhalashada nabigeennii suubana naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland, gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Culima Awdiin, abwaano shuyuukh iyo waliba dadweyne aad u tiro badan oo soo buuxdhaafiyay madasha lagu weyneynayo munaasabada dhalashada nabigeennii suubana naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee. waxaana ugu horreynba munaasabadaasi ka hadlay qaar ka mid ah abwaanada culimada iyo waliba dadweynihii ka soo qayb galay munaasabadaasi. كذلك الصلاة عليه دائما صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، فمن أخطأ الصلاة على النبي فقد خطئ طريق الجنة. الله أسأل سبحانه وتعالى أن يشفع فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أتاني جبريل عليه السلام، ملك جبريل بأيمد، فأخبرني وحي ورمي أن الله إلهي جل جلاله يباهي بكم الملائكة، وملائكة إذن كفان تميو أوليه بنادومها يجيبوا قواسك والموحر إنه ما انتهينا. waxaan leenahay dadka arrinkan ka soo qayb galay iyo dadka adduunka meelay joogaan ma ka dhigo intaba way liibaaneen. waxaase khasaaray oo khasaare weyn khasaaray dadka arrinkaas uu dhibayo. waxa uu dhibayo waa laba nooc: shayaadiinul insi iyo shayaadiinul jinni wey. xubbiga nabigooda suuban intii sadriga iyo bogooda ku socdaan la hadlayaaye siyaarada dhalashadiisa ninkii jecelow ha seegin. akhriya siirada rasuulka, subciya digrigoo dhawaaqa, sultada oo dhiga xuskiisa, salliga ha ku toosa mooge, ninkii diidani ha suuxo. calayka salaatullaahi, calayka salaamullaahi. nimanka gaalada nimanka aqoonyahanka waaweyn ee ugu fadhiisano hogaaminta ay bartaan ee ay wax ka qoraan waa hogaamintii rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh. aynu rasuulkeena eegno, aynu cilmi baarno, aynu wax ka qorno. innaga yaalaynoo keenin hogaamintii rasuulkeena oo afka lagu soo qoray. innagu intaynu hogaaminta rasuulka qorno, innagu aynu ummadaha u geyno hogaamintii rasuulkeena iyo suu rasuulkeenu wuxuu hogaaminayay. gabagabadii munaasabadaasi lagu xusay xabiibkeennii Muxamed sallallahu alayhi wa sallam ayaa waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Sheekh Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle iyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici. hadday in uun midqaalo darratin maxabii qalbigaaga ku jirto siday kuu dhibi meel nebi Muxamed lagu xusayo lagu amaanaya, sidaynad uga faa'iidaysanayn oo ismoogaansho la'aan adiga oo dhex jooga aanad isu arkaynin. ilaan ammaantii rasuulka halka lagu hayaa maxaa kale meesha yaalla? xasaan binu haabit mimbarkiisuu nebigu saaray markuu nebiga ammaanaya waa kisha cabdilfaqadhi inuu sheegay. weliba fadhi kumuu amrina kacbu istaag. dee nebi maxamed baa xasaan saaray oo yidhi istaag. hajowta muxammadan faajabtu canhu، هجوت محمدا فاجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. محمد يا رسول الله صلى الله، محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى محمد. رسولكم مركم قصيرنا كل فتي حسان بن ثابت ده وحي اللهم أيده بالمسلمين إلهه القدس كأيد مركب محيو إنه نقابلني دعاء الرسول إلى الحسان ومخصصين قف كستو أمان رسول إسلتها دعاء النبي هليا وروح القدس قال له أيديا ومعناها روح القدس قال له أيد له إله الجنة بدوي إلهي رسول كيسي أمان كيسي إسلتها كتو ده إلهي القرآن كيسي كل شيء يقف النبي محمد آية إنه قال له عذابه وقواره يوم كسوهر جد كذا من بايدي كون النبي هي ولا عذابية ودكي عايه دي العذابه أنا ما أمانينا معلاتنا لقين لا يسوقين يا عذابتي في أماني في عاي كرامة شرف الله إن حسوا وقليل نقدر يوم ماتا وعروتين تريمتهم عاوينا ماتا نقدر يوم مسلمين نقدر يوم شرف وين بين وقت هاي كرامة الوجود ده واحد اسمع
maalmo bini'aadamku sameeyeen isma aynu u cudurkisanaa aynu u soo orodnaa oo culimadeenna waaweyn ay ka khudbadaynaan waxay maanta kadina waayeen waayaan garamayn taaka boodira garmay laakiinse waxa dhahay nabigii calayhi salaatu wasalaam ilaahayay abuuray nebi ka dhigay makhluuqa u soo saaray uu yidhi ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala nabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima wax ka weyn kelmaddaasi ilaahay koonkan lahaa wili waa ku sameeyaan in malaa'igtaydu idinku ku saliica salligu mar walba ku saliica inaan xusno oo weyneynayna wax ilaahay dhibaato ay maanta cid oo leedahay garamayo qiimo weyn iyo sharafa loo kordhisa mooyaane inaan aynu dhibaatayno male waxa weeye xusno u baahannahay inaan carruurteenna barno maalintii nebigu dhashay siiradiisii maartay abtisiintiisii hooyadii aasaskiisii taariikhdiisa oo dhan aqoon waa maalin haddaynu maalmo badan kale isku imi kari weyno maalin keliya isku dhimaadno taariikhdiisu cusub oo maartay jawaab يا النبي سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلوات عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. عبد الرشيد عبد الوهاب حسين، يونيفرسال تي في، هرقيس.